السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وشوعا أو ونكسن وحنا كعصنا يا حد يا دعوانيسان إن المشي دي كالكعسان أو سبسكرايب يسارتان آدي آد الله صوت دعوات فيوجن وحن دون يا أما أرجين يا هرت وحرجين فيوجن أكيد واقع معنا فيوجن أكيد يسقون بولي وحن معنا ربع ور الصبح معنا هذا السوق سوق علي كنا نجين سوق جديد وخطر مرتين الله فيديو مرتين الله فيديو وباهن تاي إن أجود بنون ضدك أوشاب si arrinta wax looga qabto macnaha labadan qof ee dhalinyaraha ee macnaha familka ee wada degan wada nool dad waxa jira aan ka warhaynin oo ayaga u dhow baa laga yaabaa marka kulli ma garanayo arrintan waxa iminka ku soo beegay ama waxa ma garanaysaa ay sidan u noqotay ee waxa doonaya baanta yani hadal ku daalinna inay soo gudbiyo xaqiiqda dhabta ah ee meesha ku jirta horta waxaan waxa uu ku saabsan yahay waa Adnan Model iyo Bara Baby gabadhii macnaha xasaas ahayd ee wada qabeen ana qabida qaba okay hadaba waxa dhacday macnaha qoraal dheer oo meel ay ku soo qoreen dad ayaga ka ag dhow oo asxaabtooda ahaa ayaa wuxuu ahaa sidatan Adnan Model rajo badan ay ka qabtay xaaskiisa Bara maadaama dahabkeeda ay u gaday sidii uu u tahriibi lahaa dalka Amerika balse nasiib xumo tigid been ah ayaa WhatsApp-ka loogu soo diray qorshe badanna waa lagu dhacay Bara oo ka niyad jabtay waxa ku dhacay Adnan ayaa mar kale isku dayayso inay dukaankeeda xaraashto si uu jacaylkeeda riyadiisa u xumay horta arrintan ama waxaan kulli anigu waxa aan ka hadlaa ama aniga soo bandhiga wax social media ku jira Soomaa waxaan qiyaasayaa ama aan u malaynayaa in ay tahay wax been oo waxba aan jirin kalena waa dhici kartaa oo waxa uu dhici kartaa oo macquul ah noqon kartaa Adnan Model wuxuu u yahay shakhsi loo malaynayo in ay doono mar dhow oo dhow macnaha dadka يجي دونا يكتشري دونا أي وقتها طبعا Adnan Model وشخصي الله صعب عليك رب طلت السجيت أنا وما كان هذا لي أو عن ثيري واحد وجه شخص حريبي دونا مردو هدي وأنا حضرت بحين بونا غضرت كسيرين واحد وجه شخصي بحد دونا نورشي سأوما كشخصي أفريقيا سيتشوج دونا واحد وجه شخصي تجي أو غضراس بنما يا كولومبيا قاضي مكسيكا حدود كذا نكمل أيوة هذا ما أمن سنة إن أيسنا بعضي أو معناها ذهب أو إيبسي أما دكان كذا أو حراش الصو أما ما أمن سنة إن تيجي بان لوجو صدري واتساب كصوت تيجي كمان كتجو سنة يصير هرت تيجي كتجو سنة يصير يماشى أتكب حيس تصال أو كلا واحد هقف شرع له واحد doonaysa inaad duusho ama wadan kale u duusho marka meesha aad ka goosanaysid ma aha inaad tagto ama safaarad aad tagto ama airport laftiisa aad ka goosanayso travel agency meelaha aad ka goosan kartaa xaafadiina ugu dhow baad ka goosan kartaa ama visa aad ka dalban kartaa marka diyaaradda waqtiga aad ku qoran tahayna waa easy wax qarsan baad maaha tikid been dadka aad adigu lacagtaad ku aaminaysid aad u diraysid ma aha dad macnaha adigu aad aqoon ama meeshii joogan aad aqoon kala adigu qof fakariya baatay aqal leh oo xoolay lilmati la gaadaye waa laga yaabaa dad badan inta lagu dhacay ama dad badan sida hadda lagu gaadi doono oo ma garanaysaa qablayaal ama dad wax tahriibiye ay jiraan oo lagu leeyahay lacagta soo dir tikidka ku soo direynaa kadibna uu noqdo tikidkaas been dadkaasna aadaan aqoon sal iyo raadi cirib jaan email ay leeyihiin meel ay joogaan ama address lagu hagaaga ayna lahayn marka adigu bas khasaariyay iyagu ana waxa ka ma sameyn adigu bas khasaariyay adigu bal lagu qaaday adigu bal lagu siray aad iyo aad masanta dawashada fiidiyowgan ma doonayo inaan ku soo dheeraado fiidiyowgan iyo fiidiyow waxay ka tagaystaa yaa maana Allah ana ilaa wadna subscribe to YouTube hada daaways peace
xisabuna buu leeyahay waxaan macnaha rabaa warar cusub oo macnaha hadda suuqa soo galay inaan idin soo gudbiyo waa khatar markii dhinac loo fiiriyo waxay u baahan tahay in aan gudbino dadka u sheegno si arrintan wax looga qabto macnaha labadan qof ee dhalinyaraha ah ee macnaha familka ee wada degan wada nool dad waxaa jira aan ka warhaynin oo ayaga u dhow baa laga yaabaa inay jiraan marka kulley ma garanayo arrintan waxa iminka ku soo beegay ama waxa ma garanaysaa ay sidan u noqotay ee waxaan doonaya bahorta yani hadal idinku daalin inaan idin soo gudbiyo xaqiiqda dhabta ah ee meesha ka jirta horta waxa uu ku saabsan yahay waa Cadnaan Model iyo Bara Baby gabadhii macnaha xaaskiisa ahayd ee wada qabeen macnaha qabiiban ka wada okay haddaba waxa dhacday macnaha qoraal dheer oo meel ay ku soo qoreen dad ayaga ka agdhow oo asxaabtooda ahaa ayaa wuxuu ahaa sidatan Cadnaan Model rajo badan ay ka qabtay xaaskiisa Bara maadaama dahabkeeda ay u gaday sidii uu u tahriibi lahaa dalka Amerika balse nasiib xumo tigid been ah ayaa WhatsApp loogu soo diray qorshe badanna waa lagu dhacay Bara oo ka niyad jabtay waxa ku dhacay Cadnaan ayaa mar kale isku dayayso inay dukaankeeda xaraashto si uu jacaylkeeda riyadiisa u rumeeyo horta arrintan ama waxaan kulli anigu waxa aan ka hadlaa ama idin soo bandhigaa wax social media ku jira Soomaa waxaan qiyaasayaa ama aan u malaynayaa in ay tahay wax been oo waxba aan ka jirin ta kalena waa dhici kartaa oo waxa uu dhici kartaa oo macquul u noqon kartaa Cadnaan Model wuxuu u geeyay shakhsi loo malaynayo inuu tahriibi doono mar dhow waqti dhow macnaha dadka tahriibi doona in uu ku jiri doono ay u egtahay sababtoo Cadnaan Model waa shakhsi la saadaalin karo 80% anigu marka aan saadaaliyo ama aan fiiriyay waxa uu eegay shakhsi tahriibi doona mar dhow haddii uuna haddadan bixin boono wadada ku jirinba waxa uu eegay shakhsi bixi doona noloshiisa oo ma eka shakhsi Afrika si joogi doona wuxuu eegay shakhsi tagay oo wadadaas Panama iyo Colombia qaaday Mexico xuduudkeedana ka gudbay ayuu eegay haddaba ma aaminsani in ay sidan dhacday oo macnaha dahab ay u iibisay ama dukaankeeda ay u xaraashayso ama ma aaminsani in tigid been ah loogu soo diray WhatsApp-ka sababta ay tahay tigidka markaad goosanaysid horta tigidka aad goosanaysid iyo meesha aad ka baxaysid tusaale oo kale waxaad tahay qof sharci leh waxaad doonaysaa inaad duusho ama waddan kale aad u duusho marka meesha aad ka goosanaysid ma aha inaad tagto ama safaarad aad tagto ama airportka laftiisa aad ka goosanayso travel agency meelahan aad ka goosan kartaa xaafadiina ugu dhow baad tigid ka goosan kartaa ama fiisa aad ka dalban kartaa marka tiyaaradda waqtiga aad ku qoran tahayna waa easy oo wax qarsan baad ma aha tigid been ah dadka aad adigu lacagtaad ku aaminaysay aad u diraysid ma ay aha dad macnaha adigu aad aqoonin ama meeshii joogaan aad aqoonin kala adigu qof fakariya baa tahay aqal leh oo xoolay lilmatiida la gaadaye waa laga yaabaa dad badan inta lagu dhacay ama dad badan sida hadda lagu gaadi doono oo ma garanaysaa qablayaal ama dad wax tahriibiya ay jiraan oo lagu leeyahay lacagta soo dir tigidka ku soo diraynaa kadibna uu noqdo tigidkaas been dadkaasna aadaan aqoonin sal iyo raadi cirib jaan meel ay leeyihiin meel ay joogaan ama adrees lagu hagaaga ayna lahayn marka adigu baa iskhasaariyay iyagu أنا أحكي عن السمين هذه بس سريع هذه بالغ قاعدة هذه بالغ سري هذه أضمن مثلا تدوشة فيوغن مدونة ينام كسر هذا
فيديو كان يفيديو وحيد وحنا كده استايا ما الله.